السلام عليكم. قواعد الفقهية حلقة دي طبعا أفراد. والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. والخطأ قفكي والإكراه قصبدي والنسيان هالمامكي أسقطه واردي معبودنا مد كان عابدنا واردي الرحمن أي الرحمن كأه وارديو وحدن بأه كاسو قاري مايو قفكي قصبدي النسيانكي يعني هالمامكي سدح ذبا انت دنبي كاسو قاري مايو لكن هصيا شيء ورك اللو النقي أرنتو انت كليا ما هي وحبال لغا سوريبي لكن هصيا شيء مع الإتلاف هلاقيد لجيرنكيد وحيالين لجيرنكيد يثبتو وحاسقنانيا البدل بدل كيبا سقنانيا وينتفي ماشنا وحا كبحيا التأثيم دنبيغي با كبحيا يو اوغا بحيا عنه روحي قفي اما هالمامي اما لغو قصبي والزلل السنبر رحشو يعني دنبي ماشن وحايا له خطأ إكراه النسيان. خطأ وحالي هذا فعل كاغا هدو كاغا دعو ميلادن وقصدين خطأ يلي هذا. نسيان كان وحالي هذا شيء قاد حسوسنيد ومركات سمين ربتي آد هالمامتي. إكراهنا وحاوي وح لغو قصبي أضيق الرالك أين لغو قصبي مركا خطأ نو إيمانو وحان هاي خطأ وحالي هذا فعل كاغا هدو كاغا دعو ميلادن وقصدين أي لير هذا خطأ. تصالحنا وكله دور كاتكتي وغار بدربتي إن سود دلتو هاتو قسي هاتو الإيلو وح بدربتي وغار إن سود دلتو أضو وغارتي سود دلن ربا وحبط دي عباستي أو له قسيدن دلو أضو له قسيدن دلبا أبو حيكون على قف آذن فيلين حبطي قف كان ماذا أجيدن قف يكون على قف كمرك يكون على وأنت وأنت قفكي مركز دنبي مليت دنبي مليت. الرسول صلى الله عليه وسلم حليه هي رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ومدي ذو حال لغا كريالي قفكي هالمامكي يوحي اللغو قصبي. أحبابي سدحذن وخطأ إكراها النسيانك وحال سلير هذا موانع الحكم محال سلير هذا وحال سلير هذا موانع الحكم. هذا النسيانك أنو نمانو نسيان وحالير هذا شيء قاد حسوسنيد ومركات سمين ربتي آته المامتي تصالحان وكله صلاة دي وقتي هذا سوق لي واته المامتي وحد سو برروكتي وقتي هذا ولا ضافي وتجي ظهركي تدبس على كذا وحد بسو برروكتي بس دي ساعة مركز دي ساعة تكون وأقم الصلاة لبا سنة كهر لباتن سنة كهر كنتن سنة كهر هذا صو حسوستي صلاة آذن تكن حتى هذا جاهل آذن بريغاس هذا تكن هذا تدري سنيسو أو صو حسوستي صلاة آذن ولي تكن ومركا يرد يعني آذن تكن مركز هذا تكن وأقم الصلاة لذكري مركا نسيانك هل كاسان قرافنو. أحبابي هذا بقى أني مانو إكراه وركيسو بدن ياهي إن wax lagu qasbo laba noqon ikraaha koobaad waxa weeye ikraah aadan ikhyaar u lahayn wax ikhyaar ma lihid. ikraaha labaad waxa weeye waa ikraah ikhyaar aad leedahay. ikraaha koobaad ikhyaar ma lihid ikraaha labaad wax ikhyaar waa lagu siiyay. ikraaha aadan ikhyaar lahayn tusaalihiisu waxa weeye in adiga gabigaaga lagu qaado lagu xambaara gabigaaga lagu duubo ciyaal yar oo hurdayaan kor lagaga tuuro ciyaal yar oo hurdayaan inta lagu qaaday kor lagaga tuuray ciyaalkii yara way dhinteen ama way dhaawacmeen marka wax ikhyaara malihid iska macalin kartid iska mareebi kartid soo waxan lagu qaaday soo ma adiga marka ikraahan wax ikhyaara malihid maadaama aadan ikhyaar lahayn oo lagu qasbay dambi malihid laakiin meesha su'aala ku jirta ciyaalkii yara oo lagu kor tuuray haday dhinteen ka waran yaa laga rabaa magti yaa laga rabaa damaanad yaa laga rabaa
sida asalka ah waxa laga rabaa kii kugu soo tuuray laakiin hadii la waayo isagii hadii la waayo adeer magta laga rabaa ada lagu qabsan waa cadeyn doonaa insha Allah meesha ahbaabi hadaba aan u nimaadno ikraaha labaad waa ikraah ikhyaar lagu siiyay waa lagu qasbayaa laakiin iyadoo haddana lagu qasbayo ayaa waxa lagu siiyay ikhyaar kii hore kala ma aha oo aadan ikhyaar lahayn kan ikhyaar waad leedahay tusaale ahaan oo kale in gabadhii lagu dhaho gabaryahay isdhiib misaadii kale ku dilayna isdhiib waan ka zinaysanayna hadii kale hadaa diido inaan ka zinaysano waan ku dilayna u fiirsa gabadhan laba ikhyaar la siiyay mise in laga zinaysto mise in la dilo sidoo kale waxa la mid ah in xoolihii lagu dhaw soo xad xoolaha iyo xoolaha soo xad hadaa soo xad weyso waan ku dilayna xoolahan soo xad ama dil dooro ikhyaar lagu siiyay haba iska yaraade waa ikhyaar wax ikhyaar lagu siiyay marka xoolihii waad soo xadaysaa zinadan lagu qasbayna waa zinaysan waa sameyn khiyaar ma lihid ada arintan raali kama tihid kaliya naftaada ku furanaysa maadaama naftaada ku furanayso waxaan aad raali ka ahayn oo lagu qasbay wal khada'u wal ikrahu wan nisyanu asqadahu ma'bud dambikum lihidba wax dambi ka soo gaarmaayo sidoo kale ikraaha ikhyaarka lagu siiyay mithaalkiisa waxa la mid ah nabiga in lagu dhaho caaw kale nabiga wax ka sheeg ilaahay wax ka sheeg nacuudu billahi marka waxaad ka sheegaysaa ilaahay waxaad ka sheegi rasuulkana waxaad ka sheegi hadii ku dhahan ku celceli xitaa waad ku celcelin sadaqa rabbi indama qaal illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innu bil iman ahbaabi ikraaha koobaad oo san wax ikhyaar ah lahayn ikraaha yani inta lagu qabtay dhamaantaadaba lagu duduubay ciyaalka yar lagu dul riday ikraahaas culimadu waxay isku raacsan yihiin inuu san wax dambi ka soo gaarin ikraaha labaad sida loo badan yahay waa inuu san wax dambi ka soo gaarin ilaa hal mid ma ahe hal mid laga soo reebay oo culimada dhan isku raaceen inaan sameyn karin hadii lagu dhaw sameey xitaa ma sameynaysid aan ku dilno idilaadii ma sameynaysagu talow muxuu yahay midaan la ogolayn inaad sameyso xitaa hadii lagu qasbo aan marnaba la ogolayn inaad sameyso waxa weeye inaad ruux muslima aadisho inaad ruux muslima aadisho tusaalahan oo kale waxa lagu dhahay ninkan dil xabadan oo ninkan ku dil hadaa dil weyso adeer adaa u maqan waa lagu qasbaya marka sida lagu qasbay adoo waxaad sameynaysaa oo leedahay ani ninkan dilimaayo ani halii dilo inaad aday naftaada furato aad waliba aad ku furato naf kale oo muslim oo lamida adeer wax dhacay ma aha hadii lagu qasbo xitaa sameyn maysid marka ahbaabi midda lama ogolo midda culimadu way ka soo reebaan dhammaan culimadu isku raacsan yihiin midaas inaan la ogolayn lama ogolo midda ahbaabi bal su'aashan iga jawaaba oo isku daya jawaabteeda muuqaalka jooji markaan su'aasha aan ku weydiiyo su'aashu waxay tahay ninba wuxuu iska soo tuuray 40 dabaq 40 dabaq iska soo tuuray marka qof 40 dabaq iska soo tuuray shaki miyaa ku jirta dhulka duu ku dhaco inuu dhimanayo shaki kuma jirto marka adiga waxa taagneed dabaqa 20aad ayaa taagneed marka waxaad aragtay ninkan oo soo dhaadhacayo marka waxa tir kulli qofkan waa la soo tuuray hada dhulka duu ku dhacana kulli silsila ayuu dhiman lahaay tartiib ninka nafta u dhaafiyo seefa soo baxsatay seefta kurka uga jirtay ninkii dhulka wuxuu tagay asagoo kurki seef looga jaray marka waa su'aashu waxay tahay ninkan magtiisa yaa laga rabaa dimadiisa yaa laga rabaa ninkan magtiisa ma waxa laga rabaa ninkii soo tuuray mis adiga laga rabaa yaa laga rabaa su'aashan culimada ka jawaabaya waxay leeyihiin idha ijtamaca sabab wal mubashir qaddima al mubashir illa ahyanan mubashir iyo sabab haday kulmaan mubashirka la hormarin illa ahyanan mararka qaar waxa la hormariyaa sababka ninkan soo tuuray iyo ninkan seefta mariyay kan seefta mariyay ayaa magti laga rabaa adiga waxaad lahayd wax hagaaji laakiin magti ada laga rabaa maxaa yeelay kii soo tuuray wuxuu noqonayaa musabbib kan dambana wuxuu noqonayaa mubashir marka baxarkaas ha isku galin marka waxaan leenahay qofkii qawaa'idul fiqhiyya bartaa baxarkaas oo kale ma galo baxarkaas oo kale iyo wixii lamidan uu ku tusaale qaataa ma galo marka insha Allah taala baxarkaas oo kale iyo wax lamida ku tusaale qaadee ha isku galin intaad leedahay wax hagaaji adeer baxla galin
لكن هسي شيء مع الإتلاف هلاجد لجرن كيد يثبت وحاسقنانيا البدل بدل كي باسقنانيا وحانري تصالان وكلا قسيدي أدربت إنا توقتو لكن قسيدي ما يكون عنا ننكا لا يكون عادي مركا ننكاس أديك ماذا نقول قصتك وحوها هي فعلك إنا قسيدي توقتو ما دام قصتك فعلك وها قسيدي إنا توقتو أيسن لكن حبدي أيسن كل عن أي كل عادي ننكا لا أو أذن أركينين بدل كي بدي بيسا دنبيجي مليد لكن بدل كي بدي بيسا بدل محل وضع مقطع لك وضع نمكن مكتي صدبحن وينتفي ماشى وحكبحيا التأثيم الدنبيجي رفع نمتي الخضع والإكراه والنسان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلهي وحيري ها نعم أيري حديث كلا سيدك سكون وينتفي ماشى وحكبحيا التأثيم دنبيجي باكبحيا دنبي مبليهد بادي دنبي مليهد عنه روحي قفي أما هالمامي أما لو قصبي يوزلل يسنبر الرحو يعني الدنبي إذا نسوي والخضع قفكي والإكراه قصبدي والنسيان هالمامكي أسقطه وحرذي معبودنا مت كان عابدنا الرحمن أي الرحمن كأه لكن ورك اللي قلنا قيه هصي شيء مع الإتلاف هلا قد لجرن كيد وحيالين لجرن كيد يثبتوا وحاسقنانيا البدل بدل كي باسقنانيا وينتفي ماشى وحكبحيا التأثيم دنبيجي باكبحيا عنه روحي قفي أما لو قصبي قف كاسويه يوزلل يسنبري رحدي سنبر رحدي وحلا وضع دنبيجي الله وضع مرك إن شاء الله تعالى درسيا هل كاسن كسو قتمينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.